runtii sharaf bay ii tahay waanan ku faraxsanahay in maanta xafladan aad nagala soo qayb gashaan aynu ku sii sagootayno ku ammaanayno ugu mahadnaqayno agaasimaheenii hore maxamed geedi caynaashe kuna soo dhaweynayno runtii agaasimaha cusub Khalid Mire waana sunnaha dawladnimada in qofba mar iyo waqti iyo aamin uu ka la jaan qaado dhammaan waaxyaha dawladda berri anaa tegaya saa dambe cid kala imanaysa berri Khalid baa tegaya waxa laga yaabaa agaasimayaasha meel jooga inay yimaadaan marka waa iska sunnaha dawladnimada runtiina waana arrin dastuuri ah in madal kasta oo xil wareejina agaasimahana lagu sagootiyo la sheego waxqabadkiisii ammaantiisii laguna soo dhaweeyo runtii agaasimaha cusub waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddiga qabanqaabada oo ay ugu horeeyaan xubnaha agaasimayaasha guud commissionariska hay'adda shaqaalaha oo runtii waqti badan geliyay xafladan qabsoomideeda waa ku raacsanahay dhammaan xubnihii madasha ka hadlay in agaasimihii hore maxamed geedi caynaashe waqti iyo dadaal iyo juhdi badan uu geliyey sidii looga dhabayn lahaa ahdaafta iyo ujeedooyinka ay u aasaasan tahay hay'adda shaqaalaha dawladda waanan runtii qirayaa boqolkiiba boqol in dadaalkii uu geliyey runtii aynu maanta arkayno halka uu joogo kana markhaati nahay idinkuna aad ku markhaati tihiin waynu jeclayn inuu inala joogo waqtiyo fara badan oo kale laakiin waa iska sunnaha dawladnimada in waqtiba qof uu xilka joogayo Khalid waan waxaan kusoo dhaweynayaa madal iyo hay'ad ka mid ah hay'adaha ugu facaweyn qaranka ku shaqaysa dastuurka xeerar iyo habraacyo runtii dhisan oo laga shaqeeyey ilaa laga soo shaqeeyay golo baarlamaan golo wasiire iyo gole hay'adeedba oo runtii diyaara oo ah ahdaafta iyo ujeedooyinka ay ka duulaysa hay'addu inay ku dhisan yihiin kuwaas waxaa kaloo ku soo dhaweynayaa shaqaale runtii aqoontooda iyo khibradooda iyo aragnimadoodaba ay aad u sareyso numberka shaqaalaha ee marka la isku daro heer jaamacadeed ka graduate gareeyay waxaan qirayaa inay boqol dhaafsan yihiin tirada uu idin sheegay ee agaasimuhu gudbinayna uu wareejinayna waa ka idin sheegay marka halka waxaa idinka caddaanaysa in tirada hay'adda shaqaalaha dadka jooga runtii ay yihiin dad aqoon iyo aragnimadooda aad u sareyso waxaan ku kalsoonahay ahdaafta iyo ujeedooyinkaan xambaarayna inay la xambaari doonaan Khalid gaarsiin doonaan runtii hadafka iyo higsiga aan higsanayno runtii in ka midho dhalino madaxweynaha aad baan ugu mahadnaqayaa doorka uu Khalid sheegay ee uu dhalinyarta siiyey in runtii ay geliyaan waqti fiican iyo juhdi badan horumarka qaranka oo aad ka arki kartaan dhammaan agaasimayaasha guud ee qaranka markaad eegto dhawaan waxaan u qabanay shirweyne qaran oo agaasimayaasha laba agaasimin baa malaha aniga da'dayda ka weynaa marka waxaad garan kartaan agaasimayaashu levelka ay joogaan inay yihiin niman dhalinyara oo aqoontooda iyo aragnimadooda runtii ay aad u sareyso taasina waa mid runtii lagu faano ahna in laga madhadheliyey ujeedooyinkii ama higsigii madaxweynaha ee ahayd runtii inuu sareeyo sharcigu hay'adda shaqaaluhu waxay ka mid tahay hay'adaha ugu facaweyn qaranka ujeedooyinka ay u aasaasan tahay shaqaalayn oo keliyatana maaha haddaad eegtaan xeerarka iyo nidaamyadan ku shaqeyno way ka ballaaran yihiin wayna ka facaweyn yihiin runtii in shaqaalayn oo keliyataan sameeyo su'aalo fudud baan soo qaadanayaa qaab dhismeedka wasaaradaha iyo hay'aduhu ay ku shaqeeyaan waxaa mas-uul ka ah oo xeerarku ay jideeyeen inay jaangoyso hay'adda shaqaalaha marka waxaad arki kartaan xayndaabka shaqaalanimada inaan ka baxno oo runtii ujeedooyinka ay hay'adda shaqaaluhu aasaasan tahay ay ka ballaaran tahay intaas wasaaradaha iyo hay'aduhu qaab dhismeedkay ku shaqeeyaan wasiirka ayaa ka bilaabma agaasimaha iyo inta kale ka daadegaysaba waxa jaangooya marka laga yimaado kuwa dekreetooyinka madaxweynaha ku magacaaban hay'adda shaqaalaha marka hawsha aan qaranka u hayno iyo hawsha runtii mujtamaceena reer Soomaaliland u hayno waa hawl aad u weyn oo u baahan cadaalad karti aqoon iyo aragnimo saddexda qodob ee uu ka dhawaajiyay agaasimuhu cusub Khalid Mire ee uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay saddexduba waxay ku qoran yihiin oo ay ku cad yihiin xeerarka iyo habraacyada iyo higsiga fogaan higsanayna
lixda bilar ee aan ku shaqeyno hay'addu shaqaaluhu ku shaqeyso ayay ka mid yihiin marka waan ku ammaanayaa in kuwii aan hore u haynay uu kasii anba qaadi doono halkaas saddex howloodoo waaweyn ayaa runtii uu khaalidla kowsan doonaa sanadkan oo aan jeclan lahay oo aanu jeclayn inuu agaasimihii hore uu hirgeliyo laakiin waa iska sunnaha dowladnimada saddexdaa waxaa ka mid a inaan gacanta ku hayno xeerka howlgabka qaranka oo runtii aan jeclan lahay xeerkaasi inuu dhowaan naga baxo waxaa ka mid a inaanu midayn doono oo aan tayayn doono human resource management information systemka qaran ku shaqeeya waan ka dhigi doonaa hab casriya oo runtii tayo iyo waayaragnimo leh sanadkan haddii la idhaahdo iyo in darajada waxaan loo yaqaan bayan grading kala sarreynta iyo darajooyinka qaranka aan dib ugu noqon doono siyaasaddaasi oon dib u haadin doono dib runtii u qiimeyn doono taasi oo iyadana aan jeclan lahay sanadkan inaan ka madho dhalino waad ogtihiin darajooyinka iminkaan isticmaalnaa waa a iyo b iyo c iyo d eeda waxaan nidhi waa heer jaamacadeed bda waxaan nidhi waa secondary labada kale ka hooseeyaana waa dugsiga hoose iyo dugsiga hoose dhexe marka qofkii hadduu digrii noqdo uu ee noqdo xagee looga gudbaya waa hawl aan jeclan lahay sanadkan runtii inaan qaabkeedii iyo nidaamkeedii aan runtii hirgelino iyadoo xeerarkuna ay aan waafajinayno oo ay sheegayaan waana jeclahay saddexdaa arrimoodee waaweyn ee higsiga ee aan higsanayno sanadkan inuu khaalid ka midho dhalin doono runtii iyo isagoo kaashanaya agaasimayaasha iyo dhammaan xubnaha kale ee la shaqaynayaba maxamed geedi caynaashe runtii inagamu tegin uu inala joogaa wuxuu kasii mid noqon doonaa bahweynta hay'adda shaqaalaha qaranka xeerka dhowaan madaxweynuhu uu qalinka ku duugay garyaqaankuna uu faafitaanka rasmiga ku sameeyey wuxuu damaanad qaadayaa in agaasimayaasha guud ee qaranku dhammaantood ay kasii mid ahaan doonaan hay'adda shaqaalaha kuwa iskooda uga tegaya mooyaane marka xeerkaasi waxyaabaha uu damaanad qaada waxaa ka mid a agaasimayaasha marka laga soo daadego waxaa ka hooseeya shaqaalihii qaranka oo dhan marka waxyaabaha uu ka reeba waxaa ka mid a siyaasadda inay siyaasadda ku milmaan inay xisbiyada galaan waana dadka ugu yaqaano xeerku inay yihiin dad aqoon iyo waayaragnimo u leh howl socodsiinta iyo howl fududeynta qaranka marka laga tago dhinaca siyaasadda marka dhammaan agaasimayaashaasi maadaama uu xeerku u damaanad qaaday wuxuu maxamed kasii mid noqon doonaa bahweynteenna waxaanu kasii mid noqon doonaa la taliyaasha iyo shaqaalaha weyn ee guud ee qaranka maadaama xeerku uu jideeyey marka aynagamu tegin wuu inala joogaa taladiisii iyo waayaragnimadiisii iyo aqoontiisiina way nala joogtaa